kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka. qodobada barnaamijka aan idinku hayo aad uga bogan doontaan waxaa kamid ah ugaaska xawaadlo oo la kulmay Fahad Yaasiin, Kulanajiis, Xashan Sheekh Maxamuud iyo Goodlabe. haddaba kulankaasi xasaasiga maxaa looga hadlay? xogo iyo faahfaahin dheeri ah ayaan idinkaga hayaa. qodobada kaleetana waxaa kamid ah madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo wada qorshe ka dhan ah madaxweyne Farmaajo kadib markii ra'iisul wasaare Roble uu ku cadaadiyay inay bilaabaan doorashada golaha shacabka. haddaba maxaa ka jira in Siciidan iyo Axmed Madoobe ay si gaar ah u ogaarsan doonaan siyaasiyiinta taageersan Villa Soomaaliya? madaxweyne Farmaajo oo taageero lama filaan ah ka helay madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Gaas xilli uu Gaas weerar culus ku qaaday midowga musharaxiinta isla markaana shaaciyay in mucaaradku aysan meesho waxba ku haynin qaylo ma ahane. qodobadaas iyo kuwa kale oo intaas ka faahfaahsan ayaan daawadayaal barnaamijka idinkugu hayaa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe taniga 11 gambaleelkana taabo si aad u noqotid daawadaha ugu horeeya ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelino. waad ku mahadsantihiin daawashada wararka iyo sida mar kasta aad inoola socotaan aynu ku bilowno wararkeena. daawadayaal waxaan ku bilaabayaa kulanka aan idiin soo sheegay ee xasaasiga ah ee markaasi u dhaxeeyay ugaaska xawaadle Fahad Yaasiin, Kulanajiis, Xashan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kaleeto Goodlabe. ila wareedo xilkasa ayaa noo xaqiijiyay in toddobaadyaddan ay magaalada Muqdisho ku kulmeen ugaas Yuusuf, ugaas Xasan, ugaas Khaliif oo ah ugaas ka mid ah beelaha dega gobolka Hiiraan iyo madax ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha maamulka Hiirshabelle dhaqaajinla ee Cali Goodlabe, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo Cabdullaahi Kulane oo ah sarkaal ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka kuna dhow madaxweynaha. kulamadan oo dhacay xalay iyo habeen hore ayaa ahaa shirar gaargaar ah waxayna qaarkooda qaateen saacado halka qaar kalena ay qaateen wax ka yara saacad. xog aan helnay ayaa sheegaysa in ugaaska kulamadan uu mid ka mid ah sameeyay habeen hore xilli goor dambe ah waana midka uu la qaatay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. kulanka ugu horeeyay ayaa ugaas Yuusuf waxaa si wadajir ah uu la qaatay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo Cabdullaahi Kulane oo kaaliyo u ahaa, wuxuuna kulankooda daaranaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan kuraasta taala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. xubno aad ugu dhow ugaaska ayaa inoo sheegay in kulanka labada dhinac uu qaatay wax ka badan saacad, si weynna looga dooday qaabka ay noqon doonto doorashada magaalada Beledweyne iyo doorka uu ka qaadan karo ugaas Yuusuf. waxaana la xaqiijiyay in isfaham uu ku dhamaaday. inkasta oo aan si dhammaystiran u helin waxyaabaha la isku fahmay ayaa haddana xogta waxay sheegaysaa inuu qayb ka ahaa in labada dhinac ay isku afgarteen in laga wada shaqeeyo in si xasilooni ay ku jirto lagu qabto doorashada magaalada Beledweyne iyadoo aan gobol ka imaanin madaxweynaha maamulka Hiirshabelle Cali Goodlabe oo tabasho ka qabo ugaaska sida uu sheegay beeshiisana aysan ogolayn. sidoo kale xogta ayaa tilmaamaysa inuu jiro isfaham kale oo xoog leh kuna aadan doorka ay Villa Soomaaliya ku yeelan karto xubnaha ka soo bixi doona magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. waxayna wararku sheegayaan inay suurtagal tahay in ugaaska uu dalka ka maqnaan doono inta ay doorashada socoto, waxaana maamuli doona xubno gobolka saameyn ku leh sidoo kaleetana aad ugu dhow Villa Soomaaliya. Fahad Yaasiin oo ah musharax xildhibaan ayaa ka mid ah dadka ay kuraastooda taalo magaalada Beledweyne, balse wada hadalka waxa uu ka weynaa kursiga uu damaca uga jiro Fahad Yaasiin waxaana uu qusayaa 25 kursi ee golaha shacabka. waxaa soo baxaya warar sheegaya in marka kulamadaasi ay dhamaadaan in magaalada Beledweyne ay ka dhici doonto doorasho aan wax badan ka bedelnayn doorashooyinka ka dhacay magaalada Baydhabo iyo Dhuusamareeb. kulanka kale ayuu ugaaska waxa uu la qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana uu dhacay fiidkii hore ee xalay isagoo u socday muddo aan ka yareen saacad. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ugaaska ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashada iyo sida loo qaban lahaa doorasho hufan oo aan boob ahayn, ugaaskana uu qayb uga qaadan lahaa. labada mas'uul ayaa isla gartay in doorashadan ay ka dhacdo magaalada Beledweyne ayna si wadajir ah uga wada shaqeeyaan wixii danta guud ee deegaanka ah, balse ilaalinta hufnaanta doorashada iyo wixii farsamo ah ee u baahan tahay in si dhow loola socdo maadaama ay gacanta ugu jirin labada dhinac oo ay maamuli doonaan maamulka Hiirshabelle iyo gudiyada doorashada isla markaana ay saameyn ku yeelan karaan xubno siyaasiyiin ah oo xildoona. madaxweynaha maamulka Hiirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Goodlabe ayaa isagana la kulmay ugaas Yuusuf, ugaas Xasan, ugaas Khaliif wuxuuna kulankooda socday muddo ku dhow saacad.
ilo wareegyo ka agdhow ugaaska iyo madaxtooyada Hiirshabelle ayaa ii sheegay in si guud ay uga wada hadleen arrimaha Hiirshabelle iyo sidoo kale doorashada ka dhici doonta magaalada Beledweyne, balse ugaaska ayaa ka cudur daartay in waqtigan la bilaabo wada hadallo masiirka dadka uu matalo ku saabsan, isaga oo ballamiyay xilli kale in loo fariisto. Cali Guudlaabe ayaa kulankiisa ku sheegay inuu ahaa salaan iyo booqasho, waxayna labada dhinac ku ballameen kulamo kale oo dhici doono goor aan la iclaamin. Ugaaska ayaa kulabadan kadib waxa uu u ambabaxay dalka Turkiga, waxaana socdaalkiisa uu ku sheegay arrimo caafimaad oo hubin ah, balse waxaa soo baxaya warar sheegaya inuusan caafimaad u bixin, laakiin uu u baxay inuusan goobjoog ka noqonin doorashada ka dhici doonta magaalada Beledweyne oo ay xaaladeedu u muuqato in ay noqon doonto mid farmaajo uu ku soo baxayo xildhibaano markaasi badan sidii ku dhacdayba Dhuusamareeb iyo sidoo kaleeto maamulka amnarahda magaalada Baydhabo. waa hagaag barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ayaa daawadayaal la socotaan. Markana aan fiiriyo wararka kale ee aan idin diyaariyay oo aad daawan doontaan siba arrimaha doorashooyinka. madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa wada qorshe ka dhanaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo iminka ku sugan wadanka Gadar, halkaas oo lagu casuumay Siciid Dani iyo Axmed Madoobe oo ilaa hadda aan bilaabin doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaare Rooble wuxuu ku cadaadiyay saacadihii ugu dambeeyay inay bilaabaan doorashada aqalka hoose. haddaba waxaynu ka warhelnay in Siciid Dani iyo Axmed Madoobe ay wadaan qorsho ay markaasi ku doonayaan inay ku ugaarsadaan siyaasiyiinta taageersan Villa Soomaaliya, kuwaasi oo kuraas usoo doonan doona maamulada Puntland iyo Jubbaland. Siciid Dani ayaa isagu haystaa kalsooni badan oo ku saabsan in uu ka ilaaliyo liiska aqalka hoose siyaasiyiin badan oo taageersan madaxweyne Farmaajo, balse ninka la yiraahdo Axmed Madoobe ayaa caqabad weyn ay ka haysataa gobolka Gedo, maadaama halkaasi uusan wax galaangal ah ku yeelan karin si kasta oo uu u doono in uu ka ilaaliyo siyaasiyiinta lagu dooranayo gobolka Gedo kuwa taageersan madaxweyne Farmaajo inay noqdaan, maadaama gacan ku haynta magaaladaasi ay gacanta ugu jirto dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shakhsiyaad si weyn u taageersan Villa Soomaaliya. Siciid Dani iyo Axmed Madoobe ayaa la sheegay in kulamadii ugu dambeeyay ay ku yeesheen magaalada Garowe ay markaasi isla soo hadal qaadeen sidii ay u qorsheyn lahaayeen inay qabtaan doorashada golaha shacabka, balse wax taageero ah uusan doorashadaasi ka helin madaxweyne Farmaajo. sidoo kale kulankii xalayto dhexmar ee golaha wadatashiga qaran ayay kadib waxa ay kulan gaar ah ku yeesheen qadka telefoonka iyagoo ka wada hadlay sida ay doorashada ku bilaabi karaan, maadaama cadaadis xoog leh oo kaga imaanayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka injineer Maxamed Xuseen Rooble. Dani ayaa taageero weyn waxa uu siinayaa saaxiibkiisa siyaasadda Axmed Madoobe, maadaama Siciid Dani hadda isagu awood u leeyahay in uu qabto doorashooyinka golaha shacabka weliba sida uu doono. balse Dani ayaa waxaa markaasi xiisad dagaal looga furay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kadib markii ay isqabteen ciidanka PSF-ta Puntland iyada oo agaasimihii xilka laga qaaday uu diiday inuu xilka wareejiyo. waaxiga barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka ayaa daawadayaal la socotaan, meel kastoo aad joogtaan xilli wanaagsan ayaan idin leenahay. markana wararkeena kale ayaan usii gudbayaa siiba warar markaasi isla doorashada la xiriira oo Professor Gaas ama madaxweynihii hore ee maamulka Puntland uu ka soo baxay. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya sidoo kale tana ahaa madaxweyne ka soo noqday maamulka Puntland Cabdiweli Gaas ayaa weerar afka ah ku qaaday midowga musharaxiinta isagoo oo taageeray madaxweyne Farmaajo kadib markii uu dhaliilay qaabka ay ku wajahayaan doorashooyinka wadanka. waxa uu sheegay inay ahayd in midowga musharaxiinta ay si adag uga hor yimaadaan hanaanka doorashada oo aysan ka boodin kaliya marka ay soo baxaan shakhsiyaad aan taabacsanayn sida uu hadalka u dhigay. arrinkaas oo uu ku tilmaamay inay tahay wax aad looga yaqiiqsoodo isla mar ahaantaana siyaasadda xitaa aan sal iiraad batoona ku lahayn sida uu hadalka u dhigay. madaxweynihii hore ee Puntland sidoo kale tan ra'iisul wasaare ka soo noqday Soomaaliya. dagaal waan ka soo daalnay mana ku talinayno dagaal iyo dirirtoona midowga musharaxiinta waan dhaliilayaa waayo marna uma hambalyeyn kartid marna ma diidi kartid doorashada. waa wax aad loola yaabo in marna doorashada aad diido marna aad taageerto. sidoo kale waxa uu soo jeediyay in doorashada la hakiyo muddo ku dhow bil ama 2 bilood maadaama uu sheegay in dalka ay ka jiraan abaaro aad u daran kuwaasi oo horseeday geerida nafaf badan.
hadalka Mr Gas ayaa imaanaya xilli dhowaan uu kasii daray walaaca laga qabo doorashada golaha shacabka ee dalka ka socota, taasi oo markaasi ay dul hoganayaan dhibaatooyin ku saabsan in doorashooyinka ay ku socdaan qaab musuq maasuq ah. intaas ayaan daawadayaal kusoo afmirayaa barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka. Fadlan daawade haddii aad inagu cusub tahay subscribe tahay ilaabin gambarelkana taabo si aad u noqotid daawadaha ugu horeeya ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelinay.